aynu aadna magaalada Hargeysa shacabka halkaasi ku nool waxay isugu soo baxeen goobaha lagu kulmo damaashaadka ciidda awgeed waxa xusid mudan in ciidan markii ugu horeysay si gaar ah dadka isugu yimaadeen barxadda bartamaha magaalada Hargeysa ku taala waa halka ay saaran tahay diyaaradda lagu xusuusto dadkii lagu laayay dagaalkii 1988 ka dhacay halkaasi wariyaheena magaalada Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad ayaa warkan inoo soo diray boqolaal kun oo shacabka magaalada Hargeysa ayaa markii waagu bariyay isugu soo baxay goobaha loo diyaariyay salaada ciidda masaajidda iyo badi garoomaha waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa lagu tukaday barqadiina dadka oo ku wada labisan dharka ay maalinta ciidda u diyaarsadeen ayaa isugu soo baxay goobaha lagu kulmo ciidanna waxa xusid mudan in markii ugu horeysay loo furay shacabku inay ku iidaan barxadda weyn ee laga sameeyay halkii ay saarnay diyaaradda lagu xuso dadkii lagu laayay dagaalkii 88kii barxaddan ayaa lagu dhajiyay sawirka madaxweynaha oo aad u weyn taasi oo dad badan cajabisay halka qaarkoodna ay ku dhaliilayeen inay tahay astaan dictatornimo barxaddan ayaa dayactir iyo dib u dhis uu ka socday dhowrkii bilood ee u dambeeyayba dadweyne badan ayaa goobta isugu yimi kuwaasi oo damaashaadka farxadda awgeed goobtan cusub ee la diyaariyay iyaguna kaga qayb qaadanaya farxadda ciidda isla mar ahaantaasina sidaad arkaysaanba sawirro ku wada gelaya dadka kale sawirro kula gelaya goobtana sawirro ku gelaya waxaanu la hadalay qaar ka mid ah shacabkii halkaasi isugu yimi ciido badan baan soo joogay ciidaha badan aan soo joogay maanta waa ciidii ugu farxad badnayd runta marka ka hadlayno waxaan joognaa halkii barxadda ahayd ee diyaaradda agteedii banaanka weyn oo dhammaan la casriyeeyay oo aad looga shaqeeyay oo cidhiidhi ahaan jirtay oo imika aad iyo aad u qurux badan oo ay noo samaysay dawladda Soomaaliland way ku mahadsan tahay waanu ugu mahadnaqaynaa jaanis baanu u helay markaan maanta soo tukanay inaanu isugu nimaadno barxadda sawirro ku gallo carruurtii ku aragno dadkii aanu isarki jiray isku aragno la isugu wada yimaado iyo cirooriyo carruur baanu halkaa isugu nimaadno halkaa lagu ciido maanta waxaan halkan ka salaamayaa ciid mubaarak leh dhammaan ummadda islaamka oo dhan meel walay joogaanba si gaar ah waxaan salaamayaa ummadda reer Soomaaliland oo ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ku xigeenka golaha labada aqal gole waxaan aad iyo aad u salaamayaa halkan ka salaamayaa hooyaday macaan Faadimo Ciga Santar walaalahay aabahay dhammaan ehelkayga ciid walba magacayga muuqayga garanaysa iyo asxaabteeda waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan ciideeda ku gaara bashbash iyo barwaaqo ciid mubaarak waxaan salaamayna ummadda islaamka oo dhan gaar ahaan hooyaday aabahay xaga waa damar hotel weeyaan aan ku ciyaaraynaa dhammaan farxad iyo ciida waxa kale oo halkaan anagu maanta aan ku suganahay aniga familkayga carruurtayda maxay ahayd tolay walaaladay odaygayga sidoo kale dhammaantood waxaan kala ku qaadanaynaa farxadda ciidda marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan islaamka kullu caam wa antum bi khayr taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal waxa sidoo kale jira ku dhawaad 20 goobood oo ah goobaha ubadka loo raaxageeyo maalmaha ciidda oo lagu diyaariyay qalabka leexooyinka oo kala jaadjaada halkaas iyo waalidiintu ay ubadkooda farxadda ay kula qaybsadeen Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa warbixinada ciidda aynu ku jirnaa goor dhow waxaan toos u tagi doonaa magaalada Muqdisho wariyaheena Maxamuud Cabdisamad uu joogo balse inta aanan Muqdisho aadin aan ku hormarno wariyaheena Mawlid saakay salaadii ciidda ee Ciidul Fidriga masaajidkan iga dambeeya ayaan ku tukaday aniga iyo boqolaal qof masaajid aad u weyn oo ku yaala waqooyiga galbeed ee magaalada London waxaana ciidan ay kaga duwaneed ciidihii hore ee muddo 2 sano ah waa markii ugu horeysay iyadoo aanay jirin shuruudihii iyo xakamayntii COVID-19ka iyo afdaboolkii oo masaajidka la iskugu yimid dad aad u fara badan ayaa halkan maanta ku tukaday muslimiin meelo kala duwan ka kala yimid xaafado kala duwan oo magaalada London gaar ahaan waqooyiga galbeed ee magaalada London waxaana sheekhi maanta khudbadda akhrinaya uu tilmaamay inay tahay wax alla loogu mahadiyo in markii ugu horeysay muddo 2 sano ah sidan loogu ciiday marka dadka markaad fiiriso wajidooda farxad ayaa ka muuqatay waxaana ay tilmaamayeen inay tahay wax ilaahay loogu mahadiyo sida Mawlid sheegayba dabaaldega iyo farxadda ciidda ma yara Muqdisho toos u tagaya Maxamuud Cabdisamad ayaa ku jira Maxamuud sicir barna magaalada waa laga sheegayaa marka hore nooga waran sida loo ciiday
cusmaan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waxaan idin leeyahay adinka iyo daawadayaashaba ciid wanaagsan cusmaan magaalada muqdisho si weyn ayaa looga ciiday maanta maadaama bishii ramadaan 30 maalmood la soomay oo shalay ku ekayd goobo badan oo magaalada muqdisho ku yaala ayay dadku saakay aroor hore salaada ku oogeen xilli horeeto kadibna waxay u soo baxeen goobaha magaalada hadda ku soo badanaya ee beeraha dadku reer muqdisho ay baryahani ku damaashadaan waqtiyada ciidaha ah halkan aan joogo waa beerta Daarusalaam ee deegaanka Daarusalaam halkan waxaa maanta ku ciiday kumanaan dad oo ka kala yimid dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho farxad weyn ayaa dadka ka muuqatay cusmaan sida ay sheegtay magaalada Muqdisho bariyii u dambeeyay sicir barar ayaa ka jiray dhanka maciishada qaarkood iyo sidoo kale shidaalka ayadoo loo aanaynayo sababo ay ka mid yihiin dagaalka ka socda Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya dad aan la hadalnay ayaa waxay ii sheegeen sida saakay horta ciidan ciidii hore marka la isbarbar dhigo waxaad moodaa xogaa difference inuu jiro ama farqi ah farqigaasuna waxa weeye xagga maciishada iyo xogaa wadanka oo xaaladiisu ay isdeganayn iyo saameyn kale oo adduunka oo dhan ah oo aan u malaynayo inaysan kaliya nagu ahayn marka xogaa farqiga u dhaxeeya xagga maciishada iyo waliba dadka danyarta oo maaragtay magaalada ku nool maaragtay meelaha qaarkood wadooyinkooda qaar xirnaa shidaalkii ku kacay maaragtay dharkaas laftigiisa sanadkan aad u kulul yahay xagga marka la barbar sanadii hore insha Allah laakiin waxaan rajaynaynaa waxa laga bixi doono way insha Allah muqdisho marsan ma ahaan jirin beerta quruxda badan oo arkaysaan oo aad ka loo maalgeliyay maysan ahaan jirin marka maalinba maalinta laabo kor baan soconaynaa insha Allah taala halkan waxaan uga tahniyeynayaa ummadda muslimiinta ah Soomaaliya meel kastoo joogaan caalamka reer muqdisho eelada iyo qaraabada iyo asxaabta intay garanayso waxaan leeyahay ciidul mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum saalih al-a'maal wa kullu 'aamin wa antum bikhayr ciidan ciideeda kalena insha Allah ta'ala nabad iyo barwaaqo iyo wadanka sii hormaray iyo dawlad fiican soo magacayga waan istaacab salaam maanta farxadeeda lama soo koobi karo soo waxa ku ciideysanayaa beerta Daarusalaam ما شاء الله أنت أنا همبلي وحقدر يا دمام في ملكي أصحابتي وحنا يا عيد مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وهند أحمد علي دمان تنفعل كندن وحن عيد مبارك وسعدنا بيرت دارالسلام marka aad baa ugu faraxsanahay dhamaan muslimiinta oo dhan waa u hambalyeynaya ciid mubaarak baan leeyahay meel kasto ay joogaan aniga caruurtayda iyo familkeena dhan halkaan waxaan ku qaadanaynaa ciida farxadda ciida waa tahay maxamuud marka sicir bararkaasi laga soo tago dhanka farxadda ciida aan u gudbaa adiga markaad isbarbar dhigto waxaad ka mid tahay dhalinyaradii ku soo barbaartay dagaalkii sokeeye intii Soomaaliya ka jireen marka haddana aabba tahay bal isbarbar dhig farxaddii ciidihii aad soo aragtay iyo kuwa hadda caruurtaada haystaan maanta عثمان ساشكت wax badan ayaa la soo maray annaga xilli aad u adag oo qax iyo duruufo badan ay jireen laakiin maanta alxamdulillah isbedel ayaa jiro sida aad muuqaalada ka arki kartaan goobahan caruurta la keeno waa goob aad u qurux badan waxyaalo aanan annaga xilligaas fursad u helin ay caruurta u helayaan iidii horeento ilmihiga meeshaan kale aan keenay maantana maadaama aan shaqo ku jiro fursad uma yeelan laakiin waxaan rajaynayaa maalmaha dambe fasaxa inaan keeni doono laakiin Cusmaan sidoo kaleento waxaan la kulmay hadaayeer saacado ka hor waalidiin ama aabayaal sidaas oo kaleento dareenka noocaas oo kaleento qabo oo ayaga fursadii ay soo waayeen maanta inay caruurtooda u helaan ku faraxsan sidoo kaleentana muujinaya in wadanka maalinta ka dambaysa isbedel uu soo sameeyay والله كورت مر والبو وحوايا حضارة iyo maaragtay mar walbo iyo ilmaha sida ay fursad u heli karaan annaga waxa xilligaynay waaba xilli qax iyo kala guur iyo kala carar lagu jiray iska ahayd laakiin hadda alxamdulillah stability iyo istiqraarka wadanka hadda uu noocma uu maaragtay uu ku jiro ama uu maaragtay uu soo galayo ayay maaragtay tan naftigeeda qayb ka tahay waxaana dareemaa mar walba oo istiqraar amni la helo inuu maaragtay wadanka intaan uu ka sii fiicnaan doono insha Allah taala runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo beertan weynka badan ee Daarusalaam runtii caruurnimadeyda jaanis uma helin inaan ka soo qayb galo saan oo kale oo yaranteedii farxadaan oo kale inaan ka soo qayb galo fursad weyn uma helin laakiin maanta waxaan ku farxsanahay aniga iyo ilmahayga iyo xaaskayga iyo dhammaan inaan maanta aan ka soo qayb galnay damaashaadkan beerta anagoo ku damaashaadayno waad maasantahay maxamuud cabdi samad annagana halkan ayaan ciidi ku qaadanay